goortu waa dhammaadkii bishii saddexaad sanadkuna waa 1970kii diyaaradda ay leedahay Japan oo ka kici tintay garoonka caasimadda dalkaasi ee Tokyo kuna jeeday safar gudaha ah ayaa gacanta u gashay koox afduubayaal ah. yoolkoodu wuxuu ahaa inay diyaaradda iyo rakaabka saaranba ay u kaxeystaan dalka Kuuba si ay halkaasi uga soo duulaan tagaan ugana burburiyaan dowladda Japan oo ay aaminsanaayeen inay noqotay dowlad Mareykan oo gacanta ku hayo wixii uu doonana uu u meeriyo. qorshe ku bilowda filanwaa sirdoonka Japan ee damceen jahwareeriyaan afduubayaashii una dhigan dhagar ka kala tankaasha qorshahooda, laakiin si kadis ah qorshahoodii u dhicisoobay. diyaaraddii waa la afduubtay waxayna kooxdani la gashay Kuuriyada Waqooyi. haddaba sidee wax u dhaceen? muxuu ahaa qorshaha sirdoonka Japan ay u maleegeen afduubayaasha? maxaase geeyay Kuuriyada Waqooyi? magacaygu waa Cabdifataax, halkanina waa Som Channel 24. waqtigu waa 25 sano kadib isdhiibitaankii Japan iyo guuldaradii ka soo gaartay dagaalkii labaad ee dunida. dhinaca kale waxaa meeshii ugu xoogganeed maraya dagaalkii qabooba ah ee u dhexeeyay Sofiyeetka iyo Mareykanka, ama haddii aan si kale u dhahno hanti wadaagga iyo hanti goosadka. guuxa naceebka Mareykanka ayaa dhaliyay ururo badan oo doonayo in ay Japan ka saaraan gacanta Mareykanka, afgaar ahaanna dhanka gaashaanbuurta Shuuciyiinta ayay inta badan ka shidaal qaadanayeen. ururadani ayaa falal qalqalin gelin ah ka sameyn jiray gudaha Japan, waxaana ka mid ahaa dhacdadii afduub ee loo geystay diyaaraddii Japan Airlines ee sumadooda ahayd 351 oo ay koox dhalinyaro ah jaamacadeed ah ay fuliyeen iyaga oo doonayo inay la aadaan dhanka Kuuba ama dal kale oo Shuuci ah. haddaba sidee wax u dhaceen? maalintii u dambeysay bishii Maarch sanadkii 1970kii diyaaraddii Japan Airlines faleedkeedii 351 oo ku jirto howl maalmeedkeedii qorsheysnaa ayaa ka kici tintay garoomadii caalamiga ahaa ee Tokyo safar dalka gudihiisa iyadoo ku sii jeeda magaalada Fukuoka ee dhacday xeebaha waqooyi ee Japan. waxaa diyaaradda saarnaa 138 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda. xilli ay kaliya 20 daqiiqo hawada ku jirto ayaa waxaa rakaabkii ka dhex istaagay 9 nin oo dhalinyaro ah oo ku hubeysan seefo iyo hub kale, kuwaasi oo xoog ku galay qolkii duuliyaha. rakaabkiina u sheegay inay diyaaraddu u afduuban tahay. ujeedkoodu ayay ku sheegeen inay doonayaan in diyaaradda loo jiheeyo dhanka Kuuba, iyaguna ay yihiin koox ka tirsan ciidanka ayna doonayaan in ciidamada Mareykanka ay ka saaraan Japan hal hadaf ama hal yool oo midaysanna ay u sameeyaan dalalka bariga Asia iyo kuwa hanti wadaagga aaminsan ee dunida inteeda kala dhaca. ciidanka cas ama Red Army waxay ahaayeen koox xubnaheedu ay inta badan ahaayeen ardayda jaamacadaha Japan ee la dhacsanaa afkaarta hanti wadaagga kuna midaysnaa naceebka Mareykanka iyo joogitaankiisii Japan. dhowr ballaanbax ayay ka sameeyeen fagaarayaasha waaweyn iyaga oo ku baaqaya in laga soo horjeesto fikradaha Mareykanka iyo saameynta uu ku leeyahay Japan. afkaarta siyaasadeed iyo dibadbaxyo amni ah ayuuna ku ekaaka hadalka fikirkoodu. marba magac ayay ku howlgali jireen kaasoo ay kasii guuraan markii ay dowladdu ogaato dhaqaaqooda, waxayna si baahsan fikraddan uga dhex faaftay ardaydii jaamacadaha, kuwaasi oo markii dambe dhigi jiray dibadbaxyo rabshado wata iyo qoraallo wargeysyada qaar dhexmarin jireen oo la xiriiray shuuciyadda, ku baaqida awood u soo celidda Japan iyo naceebka ciidanka Mareykanka ee xarumaha waaweyn ku leh Japan ayayna ka midaysnaayeen. inkasta oo ilaa hadda mamnuuc tahay in si toos ah Japan dhexdeeda looga hadlo sida ay isu dhiibtay dagaalkii labaad kadib, haddana mar walba waxaa jira kooxo qarsoon oo guuxoosa shacabka ku dhex leh. hogaamiyihii kooxda ciidanka cas iyo tiro arday ah oo ka tirsan jaamacadda Jishisha ayaa si hoose u qorsheeyay inay fuliyaan howlgal ay dhab uga dhigayaan aragtidooda. dhowr fikradood oo miiska saarnayna waxaa laga qaatay qorshe ah afduubasho diyaarad ay lahayd Japan Airlines, kadibna diyaaraddaasi si toos ah loola aado dhanka Kuuba, halkaasna loogu furo xarun loogu tababaro dhalinyarada Japan ee aaminsan afkaarta shuuciyadda, kuwaasoo la wareegi doono awoodda Japan. waa siday aaminsanaayeen iyagoo qorshaha sida yahay ayaa si lama filaan ah loo xiray hogaamiyihii kooxdii Red Army
looma xirin ninkan in dowladdu ay heshay qorshaha afduubka wuxuu ka mid noqday dhowr qof oo laga soo xiray goob ay foodo ka dhacday, waxaana lagu tuhumay inuu ka mid ahaa burcad dembiyo abaabuleysay. Kooxdiisii ayaana u istaagay xarigga hogaamiyahooda, waxayna ku dhaqaaqeen fulidda qorshaha. Si gaar ahna waxay u calaamadeysteen diyaaraddii Japan Airlines ee sumadoodu ahayd 351, taasi oo sameysa duulimaadyo maxalli ah. Sababta ay u doorteenna waxay ahayd in ay ka ilaalo iyo baaritaan yar tahay duulimaadyada dibadda u safra. Waqtiga afduubashadana waxay ku aadiyeen xilli Japan oo ka dhacayay shirweyne caalami ah si afduubka diyaaraddu oo u noqdo dhacdo caalamka dhan u gaara, fariintooduna ay howlgalkaani ku dhex gudbiyaan. Diyaaradda Japan Airlines oo ku duuleysay nooca diyaaradda Boeing 727 ayaa waxaa rikaabka isku soo dhex qariyay 9 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 21 sano, ardayna ka ahaa jaamacadda Doshisha ee dalka Japan. Kooxdan ayaa ku hubaysneed seefaha loo yaqaano samurai oo ah hub dhaqameedka Japan iyo dhowr bambooyin oo macmal ah oo lagu soo dhex qariyay boorsooyinka. Waxay la wareegeen qorka laga wada diyaaradda iyaga oo beeloodka ku qasbay inuu amarkooda qaato. Rakaabkiina waxay ku wargeliyeen in diyaaraddu ay afduuban tahay, sababtuna ay tahay in dowladda Japan lagu ciqaabo sida xiriirka dhow ula leedahay Mareykanka iyo in ay ka soo horjeedaan joogitaanka ciidanka Mareykanka ee Japan. Waxay u sheegeen dhammaantood in ay tagayaan Cuba, halkaasna ay tababar ku qaadanayaan. Tababarkaasi oo lagu xireynayo dowladihii diyaaradda ayaa u sheegay in diyaaraddu aysan wadanin shidaal gaarsiin kara magaalada Havana ee caasimadda Cuba, maadaama duulimaadku uu ahaa mid dalka gudihiisa ah, diyaaradduna ay tahay mid yar oo aan safar dheer gari karin. Way ka aqbaleen, balse waxay u sheegeen in uu duulimaadka u bedelo magaalada Pyongyang ee caasimadda u ah Kuuriyada Waqooyi oo aan Japan ka fogeyn. Amarkan ayuuna duuliyihii ku dhaqaaqay, wuxuuna ku wargeliyay hay'adaha maamulka hawada Japan in diyaaradda la afduubtay ayna ku socoto Kuuriyada Waqooyi. Duuliyaha ayaa sidoo kale ku qanciyay kooxda inay u oggolaadaan inuu ka dejiyo magaaladii oo markii hore ku socday, si markaasi meesha sidaal ugu qaato inta uusan toos uga bixin hawada Japan. Dalabkan dambena way ka oggolaadeen. Markii diyaaradda ay soo caga dhigatay garoonkii Shizuoka ayaa ciidamadii booliiska u soo direen diyaaradda koox la xaajoota si dalabkooda wax xun looga fuliyo, iyaguna afduubkan halkaasi ay ku joojiyaan. Isdiidmo dheer kadib waxaa lagu heshiiyey in diyaaradda shidaal lagu shubo, iyagana ay sii daayaan 23 qof oo rikaabka ka mid ah, kuwaasi oo iskugu jiray dad waayeel ah, kuwa xanuunsan, caruur iyo dumar. Iyaguna waxay dalbadeen in duuliyaha la siiyo xogta jihaynta uu ku tagi karo Kuuriyada Waqooyi. Maamulka hawada Japan iyo sirdoonka ayaa iska kaashaday qorshe lagu qaldayo kooxda afduubayaasha ah. Duuliyahana waxaa la siiyay wax u eg xogtii ay dalbadeen, balse beddelkeeda ahayd in diyaaradda laga dejiyo Kuuriyada Koonfureed. Marka ay halkaas tagaana loo sameeyo soo dhaweyn u eg in ay soo gaareen Pyongyang. Sidii ayuuna duulimaadkii ku kictamay. Diyaaraddii ayaa laga dejiyay garoon ku yaala magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed. Soo dhaweyn oo ka muuqdo sawiradii Kuuriyada Waqooyi, Kim Il-sung ayaana lagala hortagay. Garoonka ayaa la suray calaamada Kuuriyada Waqooyi. Shaqaalaha garoonka iyo ilaalada ammaankana waxaa loo xiray dhar oo ka muuqdo calanka Kuuriyada Waqooyi. Inta ay hawsha soo dejinta rakaabka la diyaarinayay ayaa waxaa soo muuqday qaladaad farsamo oo shaki geliyay kooxdii afduubka waday, sida diyaarado ciidan oo calanka Mareykanka ku sawiran yahay oo qaybaha dambe ee garoonka joogay, iyo diyaarad Northwest ee Mareykanka oo soo caga dhigatay inta uu wada xaajoodka socday. Markii ay damceen inay rakaabka sii daayaan oo ay degaan, ayay afduubayaashii garowsadeen in la qiyaamay garoonkuna uusan ahayn kii ay u socdeen ee Kuuriyada Waqooyi. Markan ayay go'aankoodii ka noqdeen oo ay diideen inay rakaabka soo fasaxaan iyagoona ay soo degaan. Haddii xoog la isku dayana waxay sheegeen in diyaaradda rakaabka saaranba ay qarxin doonaan. Dowladda Japan ayaa soo dirtay koox wada xaajood la samaysa afduubayaasha oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenkii gaadiidka Japan, waxaana loo oggolaaday in dalabkooda loo fuliyo oo ay diyaaradda ula kicitamaan Kuuriyada Waqooyi, balse ay sii daayeen rakaabka u afduuban. Dalabkan way diideen.
waxayna dalbadeen damaanad dheeri ah. Wasiirkii ayaa u soo bandhigay inay isaga afduub ahaan u kaxaystaan iskana sii daayaan dadka kale ee madax furashada u haystaan. Qodobkan ayay aqbaleen, sidaasi ayayna ula kicitameen diyaaradii oo uu saaran yahay wasiir ku-xigeenkii gaadiidka Jabbaan. Dowlayaha iyo 2 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ah ayaa sidoo kale saarnaa, waxayna ka dejiyeen caasimadda Kuuriyada Waqooyi ee Pyongyang. Aad ayaana loogu soo dhaweeyay, damaanad amnina waa la siiyay. Markii hore Kuuriyada Waqooyi way diiday in ay soo celiso diyaaradda iyo wasiirkii saarnayba, balse wadahadal dalal kale ay soo kala dhex galeen ayay 2 maalin kadib Jabbaan dib ugu soo celisay diyaaradii uu la socdo wasiirkii naftirkiisii ku furtay rakaabka iyo sidoo kaleba shaqaalihii kale ee la socday diyaaraddan. Hogaamiyihii Kuuriyada Waqooyi ayaa arrinkan u arkay fursad dahabi ah oo ku ciqaabi karo Jabbaan. 9 qof ayuu siiyay dhalasho Waqooyi Kuuriya, wuxuuna ku daray xisbigiisa, sidoo kalena tababar ciidan ayuu geliyay, wuxuuna qorsheeyay sidii kooxdan u noqon lahaayeen aasaaska kooxo badan oo la mid ah oo ka yimaada Jabbaan, halkaana uu ka abuuray jabhad suuci ah oo la dagaalanta Jabbaan iyo Mareykanka. Kooxdan ayaa sidoo kale lagu daray unugyo Kuuriyada Waqooyi oo shirqoole ka geysta dibadda. xilliyo badan ayayna qayb ka noqdeen dilal qorsheysan oo sirdoonka Kuuriyada Waqooyi ay ka geysteen Jabbaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Muddo dheer ayayna sidaan ku howlgalayeen ilaa ugu dambeyn qaar ka mid ah ay qaarajisay isla Kuuriyada Waqooyi markii ay isku dayeen inay baxsadaan. Kuwa kalena ay wada ka soo baxsadeen, qaarna iyagoo howlgalo ka wada ah dalal dibadda ah ayaa Jabbaan gacanta ku soo dhigtay. Walina ilaa hadda qayb ka mid ah kooxdan ayaa ku sugan Kuuriyada Waqooyi sida laga soo xigtay dowladda Jabbaan. Baaritaano la xiriira aqoonsiga kooxdan iyo sidii afduubka u fuliyeen ayaa dowladda Jabbaan ku ogaatay in qof ka mid ah dadka u xiran uu yahay hogaamiyihii kooxdan ee sida kadiska ah burcad ahaanta loogu soo xiray. Maxkamadeyntii ayuuna ku qirtay inuu ahaa maskaxdii afduubkan, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xarag ah. Sirdoonka Jabbaan iyo kan Thailand ayaa sanadkii 2000 caasimadda Thailand howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen ku qabteen qof kale oo ka mid ah kooxdan oo lacaga badan u dhoofinayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana loo gudbiyay Jabbaan halkaasi oo lagu maxkamadeynayo. Walina dowladda Jabbaan 55 sano kadib dhacdadani waxay ugaarsi ugu jirtaa xubnaha ka haray kooxdan ee lagu tuhmayo inay ku nool yihiin gudaha Kuuriyada Waqooyi. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanteena. Haddii uu ku qanciyeen ha ilaabin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo baaweynta nagu xiran.